dareenka hooyanimo waa kan ugu qaalisan uguna naxariista badan uguna xanuunka badan dunida. Hooyo waliba waxay jeceshahay inay ilmaheeda ku qalbiyo niyadba qabowsato. Ma jirto dunidan hooyo ilmaheeda ka maarmi kartaa. Haddaba ka waran haddii hooyo ilmaheeda laga fogeeyo xanuunka ay dareemayso, qiyaas sida ay nolosheedu noqonayso. Tani waa gabadh Soomaaliyeed, waa hooyo laga fogeeyay ilmaheedii curad. Indhaheeda ilmada ka qubanaysa waad u jeedaan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilmaheeda si degdeg ah uga keeno cidii awood uga haysata. Waa tan iyada oo ka hadlaysa cidda iyada iyo ilmaheeda kala fogeysay. Hooy cunugeeda ma kala baarbaar intee ku aragtay hooyo iyo cunugeeda hooy ani calumiye hooy gabadhaadii ayaan nahay hooy gabar Soomaaliyeed aan nahay hooy halmaasteeda waa raba kordsanaya odayaa Soomaaliyeed bilis hooy cunugeeda kumanin hooy cunugeeda ma kala baarbaar intee ku aragtay hooyo iyo cunugeeda oo la kala fogeynayo diinteeda ma qabto bilis hooyo xanuunkeeda maantaanaa dareemayo almaasteed harbeltati haya iga dheereeye naxariis bani aadamnimo Soomaalinimo muslimnimo intaba itasmaan gabadheeda shanaana usoo rafaaday xalaashana kusoo qaaday waa xanuunsan bilaaw ilaa dhammaad caloosha intaa ku sida waa xanuunsanaan jiray isbitaalaa u galay qaliinaa u maray maantana waa iga fogeysay